innaga Soomaaliyeena mushkilada inaan ku dhex jirno shaki kuma jiro waliba inuu daba dheeraatay oo sanawaad socota miyeen inoo haboonayn sida asxaabta halkii mar ay jabeen ay isu weydiiyeen oo dhahan dhibkan xaquu inaga socdaa ay is weydiiyeen waa loo sheegay waxa halkaas idin kaga socdaa wayna ka digtaanoodeen dibda ugu noqonayaan Soomaaliya hadayna marka miyeen haboonayn aan isdhaahno war Soomaaliya nahay dib ayaa in haysto u jeedaane horta dhibkan xaquu inaga jira moogtay ma aha inay waxa la yiraahdaa waa shayga salkiisa waa xididka jidriga xididka waxana waa laanta iyo meesha kore tusaalaan midna waxa la yiraahdaa inka soo dhakhtar ah laakiin dhakhaatiirtu waxay noo sheegeen malaarida qof markay ku dhacdo calaamadeedu waxa kamid ah qandho xumada iyo qofkii qabanayso hadii xumadaasi paracetamol uu qofkii iska qaato oo san baaritaan intuu tago oo iska daaweeyo cudurka malaariyada oo paracetamol la soo qaato laba xabaan ka liqay waxa ka bacdi hay'ad saytaay wuxuu ku dhahaa waxoogaa dhiida iga yimid kistoo waa nafisi haye ma ku sii soconay waxoogaa markuu joogo haddana ka bacdi waxoogaa halka ka waran niyow qandhadii mar kale way soo saaraysaa uu leeyahay laba paracetamol haddana ku celi laba haddana ku sii celi waxoogaa yar kistoo sidii waa hadda paracetamol lagu celiyo qofkan paracetamolkan uu ka dhamaana asna uu rafaada daawadiina lama helaayo maxaa la rabaa marka in la daaweeyo xididka keenaya arintan oo malaariyada daawadeeda in la siiyo markii daawadeeda la siiyo xaga laga soo dagaalamo oo la soo baabi'iyo madax xanuunka asaga iska tagay marka dambe laakiin haddaan salka laga soo baabi'inin oo kor kale laga daaweeyo oo paracetamol la siiyo daawo lama helaayo mushkiladana Soomaalida waxay haysaa marka runta marka laga hadlo waxay tahay paracetamol la liqayna ilaa hadda laba xab paracetamol ku tuurayna warsay waxay naga yihiin waxoogaa madaxii uu noo yara qaboobay marka waxoogaa madaxii uu qabow liyaadaba haddana qandhadin ba haddana soo kacays markaas tan oo kale mayna soo martay tan oo kale ibadkeen mayna arkin waa maxay ugu dhacay ma garanayno haye paracetamolka ku soo celi marka ma paracetamol ma daba soconaynaa mise xididka mushkiladan raadinaa xididka mushkilada Soomaali marka fiiriso ogaada waxa ina haysta mushkilad ah dadku xukunka way jecel yihiin ilaan adduunka la joogaayo dadka isku mid ma ah qof asuu madax ku noqon lahaa wax walba u sameeyay umadaha kale oo nabadda haystay markay muddo isdagaalayeen kadib waxay ogaadeen dagaal inaan waxba lagu kala qaadaynin Mareykanka hadda Soomaaliya waa marka wadanka ugu dhaqaale badan oo ugu military badan soo kala dagaal sokay uu soo maray way islaayeen everest ka dhigan say isu leeynaayeen markii waxay gaareen war islayntaan waan ku baabaynaa qofkii xukun raba soo xukunku ku tago aan wax ku heshiino oo sidaas xukunka aan ku qaybsano haye inoo qora waxbay qoreen sida xukunka lagu gaaro waa la qoray ardayda dugsiga hoose loogu dhigaa sida xukunka lagu gaaro qofkii raba inuu madaxweyne noqdo saasoo maraya talaabada soo qaada doorashada la galaa axzaabta lagu kala biira axzaabta dhexda laga ololeeyaa saana noqota xisbiga wax soo sharaxda xisbiga intaas oo qaybad haduu helo intaas haday helaan intii oo la isku daro ku meeshan ku badan oo ku horeeyo ilaahay malaha kana qaadi doono yaa waxa waliga ku badno halkan meel kale waxa jirta hadii la isku dardaro waxaas waxba kama jiraan kan lagu soo waxbay meel dhigteen kiibay ku joogan markaas doorasho hadii la galo qofkii soo baxa kuwa badaan oo inay rabin ayaa kamid ku soo baxay laakiin marka la aqooni sidaan oo kale inagu waxaan u taqaan wuxuu yahay kuday wax la jirto kuday lacal inay ku martaa laga yaabaa kuday bis way imsan kudayna ma qasan soconayna kudayna miyana ka fiicin intaynan kudayn oo tijaabo bini aadamkeen aan isu galinin inaan si tartiib ah inagoon iskhilaafsanayn oo caadi ah aan tartiib intaan wada hadalna horta maxaan isku haysanaa waxaan isku haysanaa wax kale ma aha yaan xukumaaya bis يانا حكوماية كو حلي أنا أذن حكوماية كو كلو حلي من حكوميس كل جد واساس ماشي وحاس عط الصومالي حال كسر هاي تايم بنوني جموقت عيارة الدنيا ومن الحياة الدنيا لا لعب ولا بصومعة بنوني جمركي لجلا يكون عيارة يسا إنا يقول يسندون إنا يقول يسندون ما تقانو محايا لي بنوني اللي لا يا لأن يردون بنوني مركي شيء وحيدا بنوني وعدان يمدو نعيس نعم كعد يهين عنهم كمدو يعني بمعنى مرة ولا أتكانا مرة أتكانا siyaasadda Soomaalidu waxay rabaan garoonka doorashada inta la soo galin ka hor natiijada inay si haystaan way ma loo ciyaar natiijada la isku koob kale ma loo dhiibay kale adig koobkii waa kana qaado malno wax la fahamsan yahay rabaa inay khaldaan
ayagoo waxa arintu ay noqon doonto aan la ogeyn maba la galaayay markii la hubiyo marka oo intii ku dooran lahayd imisa xaq iimaanaysa isku dar intaas intay ku doorato intaas ay noqoto markaas waxa la hayay ciyaarta hadan galeynaa waa la galaa natiijadiisa ay noqonay marka marar hore ama waqti la isku gaagaaday oo laakiin hadda waa la isku fahmi sheekada waxa la isku haysto waa kursigaasi seen uga heshiina intii la yiraahdo taas inagoo heshiisay dan inoo wada tahay saas ma lagu qaybsadaa ilaa laga gaaro ma soconayso quraanku muxuu marka xal inooga dhigay quraanku inoo sheeg wax ilaahay inooga tagay male waxa la yiri xukunka Soomaa ah xukun wixii ku saabsan horta waxa la rabaa xukun markii dawladnimo la joogo dawladda waxa laga rabaa sidaan soo socota haday sidaan yeesho wax dhiba ma jiro dawladnimadku waxa laga rabaa koow inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba intaas waa amar diinta islaamku waxay ku socotaa leeyahay ifcal ya la tafcal samee iyo ha samaynin ifcal maxaa ya'muru bil adli adalad wal ihsani wa ita'i dhil qurba la tafcal maxaa wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi gardarada dawladdaas laga rabaa inaga Soomaali hadaan nahay dawladnimadka saan u naqaana adalad markii la yiraahdo yaani waa is aamini la yahay warnimayo adalad baan ku xukumayaa iyo aamina mid kasta haduu yiraahdo dadku ma ina arkin adalad muddo dheer ay adalad darro ku joogeen marka qofkii meeshaas waxay dhaayaan ma ka sameeyay waxay leeyeen ilaa dawladnimadku waxay u qaateen mumkin nacfi u qaateen inuu umada loogu shaqeeyo oo lagu rafaado ma ina u qaadanin waxay ku miisaaliyeen marka mar waxay dhigay waa mandeeq waa hal mandeeq la dhaho aan maalno hasheena mandeeq soo saas lama dhaho hash hadaan la calfinin oo cadawga laga ilaalinin maxaa la maali hashi meel lagu xiray waxa la kala aan maalne duurka ma loo diraayo wax ma soo cunayso cunto ma loo dhigaayo ma la sii kubcinaayo wa aan maalno hayaha la maalab kii madax noqdo waxa la arkay hashi intuu maalo intii ku jirtay ee markii uu qabsanayay isu aadaneed ee caanaha ku jirtay markuu ka dhameeyo uu canda goynaa si aan gadaashta loo maalin candadii inuu goynaa balkaas adii maal cadaalad daraas marka waxay leeyeen hashaas yaan lagaaga dhawaan adiga markaas waxay dhaheen dheri nin u dhow ayaa dheeftiisa leh waxa la isku dilay marka meeshan cadaalad ka heli mayside yaan lagaaga dhawaanin adiga iyo beeshaada meeshan ag istaag haday dadku og yihiin cidii doonayba ha qabatee wixii xuquuqa oo dawladda uu ku leeyahay inay meeshiisa tuuladiisa ku soo gaarayso dhibkeeda iyo rafaadkeeda lagu madaaleen laakiin waxa la arkay qofkii meeshan taga bas inay wixiisu tahay cadaalad darro koo wala xanaaqay marka in allah yaamuru bil adl adalad wala way al ihsan away dawladnimadku waxa loo fahamsan yahay dadka oo lagu amarku taagleeyo naxariis darro dadka la dilo dadka maxay la xabiso la rafaadiyo ihsan male way taayidul qurba dadka in wax la siiyo male weena aan fahshay wal munkar wal baghi yaani intii la reebayna munkarki iyo fal dawladnimo waxa loo fahamsan yahay munkaraadka in la faafiyo markaas ninka hadii loo waa rajul dawla ninkan waa wasiir ninkan waa hebelo maxaa masaxada ku soo dhacaaya kana hadii la wacdiyo wasiiradiina iyo hebelowgiina ilaahay ka cabsado oo saaso ko waxay ku dhahay adeer wacdiga masaajidka la aad meesha wacdi loogama baahnaa warseen loogu baahnaa wacdi ma meel wacdi kama arintaa jirta ma anagu dawlad baan nahay anagu culimada diinta noo malaysan dawladdu ma fasax ay diinta kaga jirtaa fasax ma la sii saddex bilood oo soo socota fasaxatiin diinta banaanka ma la yiri ma jirto ittaqillaha haythuma kunta ya iskooga intaas soo sal isku moogayn haysa markay dhacdo dadweynihi waxa la yiri yaa ayuha alladina aamanu adiicu allah wa adiicu rasuula ilaahi rasuulkiisa adiica wa ulil amri minkum ulil amrigana adiica meeshan fiiriyo ulil amriga islaamku qiimo badnidiisa iyo meeshu ka hadlaayo iyo meesha aan ka jabnay meesha ay tahay iyo fahm xumadayna ugu dhacday fiiriyo ulil amriga fiir waa jamac wa ulil amri mufrad male وأولي الأمر مفرد ماله هذا مثلا ولي الأمر سو مفرد معه ولي الأمر مفرد كأ جمع يسوع أولي الأمر معه وحاله ولي الأمر أولياء الأمور هذا مثلا قرية عادية مسؤول كتاه وحاله هذا ولي الأمر كأ إسكولك وحاله الماء يركع وحاله ولي الأمر جاي كان ولي الأمر جاي كان الماء إسكولك مركي والدين تود كين عيان أو شر لو قبنايو يلا كل مية وماشى لسوق يعني حاليا ما أنت الشركة محلوقة قبنايا أولياء الأمور
أولياء الأمور كان حقي مفرد كود حقوها مد والبكليس الميس أجا وحوها ولي الأمر كنا ولي الأمر بوها كنا ولي الأمر بوها مركي اللي يسكت دري وحيسكت نقدين أولياء الأمور آيات جماعة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر يين أولي الأمر وجماعة وعدد هل كان محبة حي هل روح أنتوا قارب بحويرات أنا مدحوينها اللي دها ضد كسان دوران كيلا يا والقبة بقى محل الربا ضل يراد أهل الحل والعقد أياجر أهل الحل والعقد محيين الحل معنا محواي وحبي فران العقد محل هذا وحبي حران ضدك يعني وحنا فرة وحنا حران معنا محيتاي ومدى هجان كذا أو وحي أي فران ويدهن أرنكوا سداس نقنايا وحي أي جنتان أما يحران ويدهن وساسو جنتين ساو جنتنانايو كواسا وحال أهل الحل والعقد ومد مركا مصير كده هل قف أو كليا الله مدينين بإسلامك أو حال يري أهل الحل والعقد جينا نينك ملاحظة هنا كواسو كجرا إمام نووي مركو تعريفنا وحولاي وحال أهل الحل والعقد العلماء الرؤساء وجوه الناس ضدك يعني ضدك هرتاجن وجوه الناس الذين يرجع الناس إليهم أي ضدك وصل لابتان كواس ولا مرة كواس مركا هدي أي جعنت كوهيان مصير كأمة وحمك على لابان لكن مركي اللي في اللاجوبه أو مدو إسكال أرض صوت ولا يلا ولا إسكود عاي هدي الإسكود عسالة يلا وهل ده إسكود عبان فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنوا بالله واليوم الآخر هل كان كلا بحا هدي أساس يشان ذلك خير وأحسن التأويل ساس عيدين في عن هدي سال الديدو أو يها سو خلافتان لا أدان مالك بري أيضا يسود دقيسي يريدون أن يتحاكم إلى الطاغوت مد يهودي أيا يكسو دكتة إلى هذا أو كواي دمعان نكال حكم من الدهان يهودي بريجاس قرآن كوشجع اللي يريدون أن يتحاكموا أنتو سكال الله دقي هذا عصر يعني نجوجنو وحلو بدل ماشي هل يهودي بريجاس أنت كواين مجالس بالغ دقي قبل الله أورو مركز سوي حلا يسوق بتماشي مسلمين تو أيدتكو أهل الحل والعقد جاء ورنب كاس عين هيا سيا لنا كتليا خيار إلى ديلا وحلاه مجلس هبل إيو قال هبل إيو حقها الله قاضي يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ويسيفوا جانايم هذا إنك تقول على واقعه حال ينو كسوينا ذاتك قاركين تيقوسين وحين حال مليهن عن شبس كده هنو عن كسوقنا ماشي كده ماتوا